Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada channelkeena iftiinsha muuqaalkan waxa kaga hadli doonaa film crime drama American ah oo lagu magacaabo Joker soo dhawaada oo la socda filimka bilowgiisa waxa layna geenayaa 1981 iyadoo layna barayo jilaa ku caan baxay ka qoslinta dadka laguna magacaabo Arthur Fleck kaas oo kula nool hooyadii Penny magaalada Gotham oo ku caana rabshad iyo qalalaase dadkeeda inteeda badanna ay yihiin sabool bila camal ah Arthur wuxuu qabaa xanuun khalkhal maskaxda ah kaas oo ku sababaya xilliyo aan munaasib ahayn inuu iska qoslo waxaanu ku xidhanyahay xarunta daryeelka bulshada ee magaalada waxaana dhacday in naftiisa weerar ay ku soo qaadaan dhalinyaro gaangis ah goob uu ku sugnaa oo lagu magacaabi jiray Alice inta kadibna saaxiibkii oo ay wada shaqeeyaan ayaa wuxuu siiyay baaskoolad si uu naftiisa ugu difaaco marka uu la kulmo gaangis amba dad sidan u dhibaataynaya waxa dhacday in maalin Arthur uu la kulmo gabadh jaarkiisa oo lagu magacaabo Sophia waa hooyo haysata ilmo bila aaba waxaanu ku casuumay xalfad uu ku soo bandhigi doono showgiisa soo socda maalin ayaa isagoo maad iyo qosol u sameynaya xaruur yaryar cisbitaalka gudihiisa ayaa Arthur waxa ka dhacaysa baaskooladii isla markaa saaxiibkiisii siiyay baaskoolada amba qoriga ee isku difaac ku yidhi wuxuu sheegayaa inaanu isagu siin ee Arthur uu soo iibsaday kadibna maadaama Arthur shaqadii la yimi qori amba hub shaqadii waa laga eriyay waana laga joojinaya maalin ayaa isagoo Arthur labiskiisii uu ku shaqaynayay ee uu ku jilayay xiran waxa uu ku safrayaa tareenka waxaana soo weeraraya 3 nin oo ganacsadayaal ah laba uu tooganaya isagoo naftiisa difaacaya halka ka saddexaadna si toos ah uga daba tagayo oo si cad u dilayo haddaba waxa dhaleecaynaya dilka loo geystay 3 nin ganacsadaha weyn ee bilyaneerka ah Thomas Wayne una tartamaya jagada maayirnimo waxaanu tilmaamaya uu sheegaya in dadka horumarkooda ka xum oo dhibaateeya dilna kula kaca ay jiraan ay taynayeen tallaabo sharciya laga qaado sida ninkan waalan ee jilaaga ah isla markiiba waxa bilaabmaya mudaharaado waaweyn oo lagaga soo horjeedo ganacsadayaasha magaalada Gotham iyaga oo mudaharadayaashu sita border iyo sawiraan uu ku xidhan yahay ninkan jilaaga ah amba ka qosliyaha sawiraantiisa waxayna sheegayaan in kharashaadkii lagu bixin jiray social serviceska iyo adeegyada caafimaadka la joojiyay taasina ay keentay ninkan Arthur adeegga caafimaad ee loo sameyn jiray inuu meesha ka baxo gabadhii ay jaarka haayeen ee Sophia waxay ka qayb galaysaa showgii uu ku casuumay ee ka qabsoomay baar balse waxa dhacaysa showgii sidii loo baahnaa in aan u dhicin waayo Arthur waxa ku imanaya xaalad qosol oo badan taas oo qasaysa meeshana ka saaraysa kaftankii looga bartay inuu ka soo jeediyo stage-yada waxaana dhacaysa in nin barnaamij soo jeediye ka ah show caana oo lagu magacaabo Mori uu soo qaato video kooban oo uu ku maadeynayo ninka lagu yeero Arthur inta kadib Arthur wuxuu helayaa warqad ay hooyadii Penny u qortay ganacsadaha weyn ee Thomas Wayne iyadoo oo tilmaamaysa wiilkan Arthur inuu isagu dhalay sifa bilaa sharciyana ku dhalay hooyadiisa saxdaana ay tahay Barrett xaqiiqda dhabtaana laga qariyay Arthur kadib markuu warqadii akhristo Arthur wuxuu si toos ah u tagayaa guriga Wayne halkaas oo kula kulmayo wiil yar oo u dhalay Thomas oo lagu magacaabo Bruce kadibna wuxuu muran iyo dagaal la gelayaa Alfred oo ah adeegaha qoyska kadibna meeshii uu iskaga soo cararaya waanu ka soo baxsanayaa intaan la xidhin inta kadibna magaalada Gotham waxa soo gaaraya 2 sarkaal oo dambi baarayaal kana tirsan waaxda booliska si ay u baaraan dilkii amba dambigii ka dhacay tareenka ee la xiriiray Arthur dhanka kale Arthur hooyadii amba gabadhii uu haystay hooyadii Penny stroke ayaa ku dhacaya waxaana la dhigayaa isbitaalka waxaase dhacaysa Arthur inuu si toos ah u la kulmo meel publica Wayne isagoo oo weydiinaya xaqiiqdu waxa ay tahay Wayne waa diidaya waxaanu u sheegayaa in hooyadii Penny aanay ahayn ee been iyo mala awaal ay uga sheekaysay kadibna marka uu diidmada la kulmo wuxuu Arthur si toos ah u tagayaa isbitaalka gobolka Akron halkaas oo ka soo xadayo faylka xaqiiqda hooyadii ku saabsan faylku wuxuu sheegayaa inaanay Penny dhalin balse ay soo korsatay waxa kale oo faylku xusaya ninkii la saaxiibka ahaa Penny inay u ogolaatay inuu wiilkan child abuse ku sameeyo dhibaateeyana sidaasay tahay Penny waxay ku andacoonaysaa Thomas inuu awood dhaqaale iyo mid madaxeed uu isticmaalay kuna bedelay xaqiiqda si uu meesha uga saaro inuu wiilkan isagu dhalay kuna diiwaan geliyo inay wiilkan Penny aanay dhalin ee soo korsatay kadibna Arthur oo niyad jabsan kacsanna ayaa wuxuu ku noqonayaa dhismihii uu deganaa waxaanu gelayaa Sophia
gurigeedii iyada oon ogeyn. Sofia markay aragto khalkhalka ka muuqda Arthur way baqaysaa, cabsi baana gelaysaa, waxaana u sheegaysaa inuu guriga u faaruqiyo oo uu tago qaybtii uu deganaa. xaqiiqda dhabtaana waxay tahay kulamadii hore ee uu la sameeyey Sofia inay hayeen qaar wax makaba jiraana ee uu Arthurun niyadiisa ka malaysanayay, naftiisuna sawiranaysay, waayo wuxuu qabaa xanuun delusion la yiraahdo oo ah kii Thomas ku andacoonayay inay hooyadii Benny qabtay iyaduna. maalinkii ku xigay Arthur wuxuu samaynayaa inuu hooyadii ku dilo cisbitaalka dhexdiisa kuna ceejiyo. Arthur waxaa lagu casuumayaa showga weyn ee Maureen iyada oo ay ugu wacan tahay sida lama filaanka ah ee fiidiyoyadiisii yaryaraa ee comedy-gaha ay caan u noqdeen. Arthur isagoo showgiis ku diyaarinaya ayaa gurigiisa waxa ku soo booqanaya labadii nin ee wada shaqayn jireen, Randall iyo Gary. Randall wuu dilayaa isagoo ka aargudsanaya baaskooladii uu dhiibay ee uu ku inkiray markii dambe, halka uu Gary fasaxayo waayo sidii fiicneed ee uu la dhaqmi jiray markii ay wada shaqaynayeen. Arthur oo ku soo labistay labiskiisii maadda kuna sii socday stuudiyoogii ayaa waxa soo weerarayaan laba askari oo dambi baarayaala waana qabanayaan. haddaba waxa dhacaysa in tareenka dushiisa ay kula kulmaan dad badan oo mudaharaadayaal ah, waxaana dhacaysa labadii nin ee askartaha in mid ka midii qof mudaharaado ah si lama filaana u toogto. tiina waxay keenaysaa in xaaladii sii cakirmato oo dadkii isku dhex yaacaan, buuqna ka dhasho, waxaana imanaysa inuu Arthur ka faa'iideysto xaaladda oo uu ka faramaroorsamo askartii kana baxsado. Arthur wuxuu soo gaarayaa goobtii showga. inta aanu showgu si live u bilaabmina wuxuu si madadaalo iyo kaftan ku jiro isku barayaa Maureen, taasoo xasuusinaysa fiidiyoyadii gaagaabnaa ee maadda ahaa ee uu ka sameeyey. isla sidaadu Arthur uga soo muuqdo stagekii showga, dadkii sawaxan iyo qaylo iyo soo dhaweyn ayay samaynayaan iyagoo ku faraxsan Arthur. balse xaaladdu waxay isbedelaysaa markuu Arthur ku bilaabo kaftankiisii. xabsi iyo waali ama kaag iyo argagax ayaana ku dhacaya dadkii showga daawanayay iyo ninkii soo jeedinayana. waxaanu Arthur isku dayayaa dilkii ka dhacay tareenka inuu ka dhaadhiciyo inay sababteed ahayd dadka inay si xun ula dhaqmeen, bahdileen oo qof xanuunsanaya ku tilmaameen, isla markaana ay taasi keentay shaqadiisii in laga eriyo, jilaanimadii uu wadayna hakisay. isagoo ku sii adkaysanaya inuu saxsan yahay ayaa wuxuu tooganaya ninkii wariyaha ahaa ee Maureen, waana la xidhaya. kadibna mudaharaado waaweyn ayaa ka dilaacaya magaalada Gotham. mid ka mida mudaharadayaashina wuxuu weerarayaa qoyskii Thomas, waxaanu halkaa ku dilayaa kuna tooganaya Thomas iyo xaaskiisa, balse wiilkii yaraa ee uu dhalay Thomas ee Bruce lagu magacaabayay nolol buu kaga tegaya. qaar ka mida mudaharadayaashina waxay soo kaxaysanayaan ambulance, waxaanay ku dhufanayaan gaadhigii booliska ee lagu waday Arthur iyagoo halkii ku sii daynaya kuna fakinaya. Arthurna stagekii ayuu ku jaasaya kuna ciyaaraya isagoo maad samaynaya. Arthur isagoo oo ku jira cisbitaalka wuxuu ku qoslayaa naftiisa isagoo oo u sheegaya kaftankii maadda ahaa, waxaanu u sheegayaa dhakhaatiirtii psychiatric ahaa inaanay iyagu qaar fahmaya ahayn. ugu dambaynna dil ayuu kula kacaya, waxaanu ka cararayaa cisbitaalkii isaga oo raadkiisa uu ku sawiran yahay dhiig. fadlan nagu soo biir oo taabo subscribe si aad ula socoto muuqaalo kale oo xiiso leh. sidoo kale muuqaalkana like ku dhaaf, waanad ku mahadsantahay.